carwada caalamiga ee Alfurdus ee magaala ganacsiyeedka degmada Togwa Jaale oo iyadu waa carwo inta badan soo dejisa alaabaha kala duwan ee lagu qurxiyo guryaha sida fadhiyada, roogaga, gogasha, furaashyada iyo itemyo kala duwan oo iyagu alaabaha lagu qurxiyo guryaha ayaa maanta soo bandhigtay qiimo dhibis ballaaran oo u sameysay munaasabada Ciidul Adha awgeed macaamiisheeda kala duwan ee ku xidhan carwadaasi. Haddaba telefishinka caalamiga ee Somali News TV oo isagu buuqday carwada ayaa waxa halkaasi aan kula kulanay isla markaasina ka warbixiyay qiimo dhibista ay ugu sameynayaan shacabka kala duwan ee ku dhaqan Somaliland, Ethiopia iyo Djibouti ee iyagu ku xidhan carwadaasi. Aqoon-yahan Saad Maxamed oo isagu ah managerka guud ee carwada Alfurdus ee magaala ganacsiyeedka degmadaasi Togwa Jaale waxaana uu macaamiisha kala ku xidhan carwada Alfurdus ugu baaqay inay ka faa'iideystaan qiimo dhibista ballaaran ee uu sameeyay macaamiisheeda sida khaaska ugu xidhan carwada Alfurdus. aqoon-yahan Saad Maxamed oo isagu arrimahaas ayaa waxa kamid ah hadaladiisii. anagoo gogosha laba siyaabood baan u iibinaa. mid waad arkaysaan waa tafaariiqdii oo wax weeyaan bulshada waxaan u sameynay inuu qofku gurigiisa u adeegan karo ta kale labaad waxaan u sameynay bulshada inuu qofku meheradiisa u adeegan karo. labadaas siyaabood ka kooban mid waa tafaariiqdii midna waa jilmadii. anagu soo dejina dadkana ka sii iibinaa si gooniina u sii iibinaa. marka bulshooyinka reer Somaliland meel kasta joogan waxaan leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada. anagoo macaamiisha u sameynay qiimo dhimis ballaaran waxaan aad iyo aad dadweynaha ku nool geyga Soomaaliya u degto iyo inta degan gobolada Somaliland ee macaamiisha nala waxaan ugu bushaareynaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaanu sameynay qiimo dhimis ballaaran taas oo sabab u ah Ciidul Farxida awgeed. aad iyo aad baan dhammaan waxa weyn macaamiisheeda ugu mahadnaqayaa. anigu aad iyo aad baan macaamiisheeda waxaan ku baraarujinayaa inay ka qayb qaataan qiimo dhimistan u sameynay Ciidul Adha awgeed iyo anagoo macaamiisheeda ku raali gelinayna maadaama ay yihiin dad si gooni wax nooga iibsada oo ku kala sugan dhammaan gobolada Somaliland iyo maxaa ku dhahay dadka indiriska nahay dalka indiriska nahay Ethiopia gaar ahaan dadka ku nool gobolka Soomaalida. waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeyaa inay ka soo qayb galaan qiimo dhimista ballaaran aan sameynay ee kambaniga weyn Alfurdus. waxa weey macaamiishu sharaf iyo xushmad bay naga mudan yihiin inaan markasta raali gelino oo aan waxay jecel yihiin waxaanu sameyno annagoo hayna qiimo dhimistii xoolo tayo leh oo ay ugu adeegan karaan danahooga sida aroosyada, xafladaha, maalmaha ciida. dhammaantood waxaan leenahay ku soo dhawaada kambaniga gacmo furan, shaqaale firfircoon, adeeg hufan. dhammaantiin waxaan leenahay hambalyo soo dhawaada. Qadar Cabdi Abdullahi telefishinka caalamiga ee Somali News TV magaala ganacsiyeedka degmada Togwa Jaale.